Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha noolaato. الشباب الرصاص كتفوا على وين marka dagaaladu ay bilowdaan maaragtay xilliyada dagaalada beenuhu waa badan yihiin xagga la yeelay kaasa la yeelay waxba la dilay nin qof dhaawacmay la isma daryeelin reer hebel dooduhu waa badan yihiin markay dagaalada socdaan dagaalka markuu dhamaadana qof kasta geesi way qof wuxuu sheegaa tan ka dhacdo waa la yaabo kulliye marka urkiina 87 hadda idinka bilow waa tihiin waxa la rabaa inaad shaqadii wax ka qabataan marka ugu horeyso horta dadka horinada iyo kooxaha ciidanka wada waxa mas'uuliyadda kooda saaran horta waa inay ciidanku dadku isku xiran yihiin oo walaalka aadan ka tagin baahalka dadka inuu cuna u yimid aadan uga carareen shacabka maxaa yeelay dadka waxay u soo baxeen oo ay kuugu imaahayeen oo macawisley ula baxeen ama odayaasha ula baxeen iyagoo garar gudgudan odayaal ah waayeelo ah ay hubka u qaateen waxay isku haleynayaan ciidankii qaranka isku haleynayaan maanta dadku wuxuu u baahan yahay hilo u baahan yahay hilada dadku uga baahan yahay dalka qaybta koowaad idinka waa qof waxa jira 25 sano ku dhinta oo la aasaaso 75 sano jira macnuhu maxaa waaye karaamadii iyo gobonnimadii ka tagay in la gumaysto ogolaaday dadkan Soomaalida waxyaabaha maxaa la yiraahdaa ciyaw dawladnimada isku taagayso waxa kamid ah geesinimada dadka iyo inay gobonimada shakhsi ay u jecel yihiin shakhsigaas inta laga dhaafaa waxa la rabaa hadda inay gobonimada dalka qofku ilaaliyo oo tiisa gaarka iyo raganimadiisa gaarka uu ka wareego kadibna uu dalkii aado sideedaba noloshane inaad ku noolaato maxaa la yiraahdaa gobonnimo oo aad baahan tahay ayaa mar kasta ka fiican inaad gun tahay oo dhergan tahay ka fiican ma fahanti noloshu inay mahad ku noolaato iyo inay geeriyooto wax uma dhaxayaan dalkan 20 sanane Mooryan iyo waxa haystay 20 sanana argagixisa daba taagneed inuu ka baxaa waay dadkii hadda oo dhashay xilliga ka dambe oo buurka dhacay kadib 40 sano gaaray 40 sano kale anaga baa saasi nagu dhaafsan noloshu ma aha inay dhashayna ay sugtaan ma fahanteen waxa la rabaa markay idinkoo amaradii qaadanayo inaad dagaalkii aadaan la rabaa qof hadda sidaan loo gubaabiyay oo taliyihii ciidanka uu hortaagan yahay oo maxaa la yiraahdaa wixii baahida intii awoodaha oo la qaba la siinayo laga qabtirayo in haddana maxaa la yiraahdaa asagii xabsiga ku dambeeyay hal xire iyo shaqadii guday waajib guduga la hamal rabo waxaan rabnaa taliyaha labada amaro halkan ka bixiyay oo ina deegaanka difaaciisa la suga iyo walaalaha in loo gurmado ah in arintaasi leedin kugu yimaada la rabaa in leedin kugu yimaada la rabaa darajooyinka waa ka soo tagay maanta dadka dagaalamaya ku jira maxkamad xabdiridaysa joogto oo cadow ku ridayso amarka sida loo leedin siiyay ina u fulisaan kaliya leedin ka rabaa niman yahow hala shaqeeyo waajibka hala guto amarka sida loo fuliyo loo qabto maanta hiilkiina loo baahan yahay 87 hiilkiina loo baahan yahay shaqeeya amarka taliyaha hala fuliyo aada u maasantihiin الشباب الرصاص كتفوا على وين Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya ha noolaato. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.